الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا شيخ ميشن وحو كهني بيدهان شراح markay maaragtay تعليقين hayaan ama ka hadlayaan wasiyadu ama dardaaramadu waxay ku tacalluqaan dhimashada oo ruuxu hadaan dhinto uu leeyahay hadaan dhinto sax la yeelo. sidaas daraadeed baa waxaan ka soo baxnay kitaabul irth ama maaragtay al-mawaariith dhaxaladii wixii la dhaxlahay markaasuu kana ka daba keenay. sababtu maxay tahay? wasiyadu maxay calaaqa la leedahay dhimashada, dhaxalkuna muxuu yimaadaa dhimasho gadaashi ayuu yimaadaa. marka xiriirkaas ka dhaxeeya fuqahaada qaarkood markay alifayaan waxay horeysiyaan wasiyada oo waxay dhahaa maaragtay wasiyada markay ka hadlaan ka bacdi yaa laga yaabaa inay kitaabul irthina keenaan. sababta waxa weeyaan dhaxalka waxa la dhaxlahayo iyo dardaaranka kee la horeysiin oo la horbixinayaa dardaaranka min bacdi wasiyatin yusiiwa biha aw dayn ayuu dhaxalku imaanayaa. kelimatu wasi ama laga soo maaragtay waxaa kale jiro kale inta u gelin maaragtay wasiya iyo wisaaya. waxaa kale jira wasiya iyo wisaaya. wasiya waa midan hadda uu inoo bilaabay, saayadana maaragtay dib inuu ka keenaa maaragtay dhacdee waxa weeyaan waa ruux leeyahay mas'uul ka noqo, wisaaya la dhahaa. wasiyaduna waa wax nacfi la isu dardaarmahayo oo waa tan maaragtay haddaan dhinto xoolahaygii thuluthkooda hebel ha la siiyo ama meel heblaha lagu bixiyo, midda waa nacfi moogtahay. taa maxaan dhahaynaa wasiya. hadduu ruuxu wisaayo sameeyo oo yidhaahdo ilmahaygii hebel baa mas-uul ka ah ama xoolahooda hebel ha u hayo ama kadaana, taana maxaan dhahaynaa wisaaya. marka wasiya waxaa kale jira wisaaya. wasiya waxay ka timid min wasa yasi, macnaheedu waxaa wasala yasil oo kale oo wax la isgaarsiiyo oo wax ruux kale la gaarsiin. wasa dardaaranka waxaa weeyaan ruux baa xoolihiisii qayb ka mid a ruux kale leh ha la gaarsiiyo ha la siiyo. wasiyadii marka saas ayay noqonaysaa xagga luqada. ayib, ama xagga sharciga waa ruux oo tabarucayo bilaash ku bixinahaya wax xaq ah ama maalan maaragtay oo dhimashada gadaasheeda imaanaya waxa uu leeyahay hala bixiyana waa maa bacda almowt. adiga waxaa la isku xidhayaa noloshii iyo geeridii baa la isku soo xidhayaa. saasa maaragtay kutubta sharciga way idin tacriifinayaan. awal alislaam saad ogsoontihiin wasiyada dadka aqrabiinta iyo waalideynka oo loo dardaarmo maxay ahayd? waajib farad ay ahaan jirtay. suurat baqara ilahi wuxuu yidhi kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalideyni walaqrabiin. kutiba waxaa lagu waajibiyey oo lagu faral yeelay calaykum dushiina idaa goortii xadara uu yimaado oo soo xaadiro axadakum mid idinka mida uu ku yimaado almowt geeri ay ku imaato. xadara faacilkeeda almowt waa maaragtay in taraka hadduu ka tegay khayran maal. taraka waa maalka, khayrkaan ujeedaa aayadda ku jira waa maalka iyo xoolaha. hadduu xoolaha ka tegay maxaa la isku faral yeelo waajib isku ah ya alwasiyatu ayaa la isku faral yeelay. waayahay marka kutiba calaykum alwasiya in xadara axadakum almowt in taraka khayran alwasiya. markii hore faral bay ahayd, waa la nasakhay. waxaa lagu nasakhay aayaat lmiiraath yaa lagu nasakhay. saas bay qowl jumhuur culamaa ku tageen. laakiin daahiriyadu waxay leeyihiin weli waa waajib. wasiyadu weli waa maxay? waa waajib. taana dhaxal bay ka hadashay, tanna waxa weeyaan dadkii aan dhaxalka lahayn in wax loo dardaarmo weli waa waajib. saas laakiin madhab jumhuur culamaa waxa weeyaan inay maaragtay ayna waajib ahayn mustaxab tahay weeyaan. ama adilada maaragtay ku tusinaysa fara badan tahay. axaadiidna way jirtaa, aayadana way jiraan. aayadaha laba aayadood isku xigta
oo suuratu nisaa ku jirta mid maaragtay maxay aayadii maaragtay yuusiikum allahu fi awlaadikum lidakari aakhirkeeda maxaa ku qoran min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn yuusii oo saadka la hoos dhawo ruuxii maaragtay dhimanaya dardaaranku ka imaanaya aayadda ku xigto oo walakum nisfu maa tarakana way ku jirta iyadana waxaa ku jira maaragtay tuusuuna ama yuusiina ama yuusa intaba way ku jirtaa intaba iyadana way ku jirtaa aayadaha markaa kalimaadka aayadaha ku soo arooray kulligood waxay ku tusinayaan in uu dardaaranku shay mashruuca yahay khilaafku waa maxay jamhuur iyo maalan daahiriya isugu khilaafsan yihiin waa waajib iyo waa mustaxab iyo waajib iyo isku hayaan afdalku waxaa weyaan ruuxu sadaqadiisa intuu fayow inuu la baxo xadiidka nabi qaarkeed siday ku tusay intaad nooshahay iyo fadli badanta maxaa nabi alay salatu salam waxaa ka ilaha afdalu sadaqati an tatasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun inaad wax la baxdo adoo fayow oo la bakhiilayo isla waxan hadduu ku dhaafo seed noqon doontaa ta'mulu lghinaa taajirnimihii hodantinimana sugahaya watakhsha alfaqra markaasuu nabig wuxuu walaa tumhil xataa idaa balagat ilxulquuma qulta lifulaanin kada walifulaanin kada markaa moogtahay nooc cabsi iyo calaacal baa ku gale marka naftu meesha soo gaadho inaad tiraado hebella waxaa hala siiyo hebella waxaasuu le hebella waxaasuu le maxaa ka fiican inta aada fayowdahay ood caafimaad qabto waxaad la bixi karto la bax saasaa fadli badan waayahay alfaadeedii ka hadalkeedu fara badan yahay shuraaxda fiiriya aan usoo noqono matnigeena arkaan oo afar ay leedahay oo bilowga hore sheekhu masaa-isha hore kaga hadli doono rugniga koowaad waxaa weya waa muusi midkii wax dardaarmayey rugniga labaadna waa muusaa lahu kii loo dardaarmayey rugniga saddexaadna waa maxay muusaa bihi shaygii la dardaarmayey rugniga afraadna waa maxay siiqadii maaragtay sidii loo dhahayo oo qowli maaragtay kinaayaba leh waa sariix iyo kinaayaba leh intaba insha allah meeshaan ku mari doonaa waa ta qabsada marka tasixu way asaxdaa wasiyatu kulli mukallafin marka hadda yaa laga hadlahayaa haddaan idhi muusi muusaa lahu muusaa bihi siiqa tasixu wasiyad iyay ka hadlaysaa muusigii kii dardaarmayey dardaarankiisa yuu ansaxahaya nin walba dardaarankiisu ma ansixi mise ma ansaxayo nin walba dardaarankiisu ma ansaxayo dad gooni ayuu dardaarankoodu ansaxaa dadkii uu dardaarankoodu ansaxayay yuu sheekhu inoo soo hormariyo muusigii ah kii dardaarmaya tasixu way ansaxaysaa oo wasiyatu kulli mukallafin ku kasta oo la kalifay oo qaangaar oo caqli leh wasiyadiisu way ansaxaysaa xurin xor ah meesha wixii ka baxaysa kuu keeni doonee wain kaana ruuxaasi ha ahaadaba kaafiran gaal xataa gaalka dardaarankiisu waa ansaxahayaa dardaarankiisu waa dhimmi iyo khayra dhimmi wuxuu noqdaba adilada caamka ayaana loo daliishan iyo kusoo aroortay waxayna lamid tahay xoreyntii iyo milkii unbay wasiyaduna lamid tahay labadaana gaal iyo muslimba way ka ansaxahayaan wakadaa waxaa lamid ah kadaada haddaan soo maray maxaan kusoo baranay hadduu kadaa idhaha sheekhu masalada inay khilaafi tahay wakadaa waxaa lamid ah oo wasiyadu ansaxaysaa maxjuurun calayhi kii la xajriyey kii la sharay oo la reebay maxaa loo sharay bisafahin bifalas ma ah waxaan soo maray baabulxajri waxaan kusoo maray maaragtay baabu tafliis baan u jira ama maaragtay iflaaska ama mufliska macnaha waxaa weeyaan iyo xaji kuwa dadka oo xajriga lagu sameynayo baabulxajri baan u jira waxaan kusoo maray maxjuuru calayhi imaa lisafahin wa imaa lifalasin safah hadduu yahay hada waa nin tasaruf xumo ku dhacday falaskuna tasaruf xumo kuma dhicin dayn baa lagu yeeshay dayntii iyo xoolihii baa maxaa batay dayntii baa badatay kaa maartay waxba dhib ma laha dardaarankiisu laakiin kan oo safaha oo maamulkiisu uusan fulaynin dardaarankiisu ma fuli mise ma fulayo intaa khilaaf madhabku waxa weyaan inuu fulayo madhabku waxa weyaan inuu fulahayo waayahay wakadaa waxaa lamida masaladan maxjuurun calayhi mid la sharay oo tasarufkii laga reebay xoolihiis uu ku tasarufayo bisafahin bisababi safahin maarta tasaruf xumo daraadeedna looga reebay cala almadhabi sida madhabku yahay wasiyadiisu way fulaysaa laa majnuunin xagee marka ka baxaysaa laa majnuunin wasiyatu kulli mukallaf samayna soo mareen
كل مكلف يعني مكلف هين مجنون مكلف بس مكلف معه مكلف معه وسيدس ما أنصحيس مرك لا مجنون ما أنصحيس ومغمى عليه ما أنصحيس لأنه مركب حالة أو إغماء كتير ومير الآن تويه ربع بكومة ذي كري أو إسبيتال كياله دوس كها هذا وسيدس ما أنصحيس ما أنصحيس ومغمى عليه ومن المير دباري والسبيل مكلف ما هي السجنة وفي قول بوحوله تصيح وأصحيس من سبيل بكاس هذا سبيل المير الماس مميز وحكى الساعة هيو حد تمييز جاري وسيديس وأصحيس أي قول كتجي معايا ما ركتي ملكيسي عنده إلى هذا وحنا دردارمي قرما الله بحين دونا markuu dhintay ka bacdi Soomaa marka intuu nool milkigiisa way ku jirtaa oo masuulayso saas daradeed ilmaha yar ee mumayizka wax kala garanaya wasiyadiisu way saxaysaa maartay baad ulama ay leeyihiin مثلا قرباتك كله سلادي سوء أصحى صما حجك سوء أصحى ما أرتاصو كله طيب قولك وحاق إمام مالك إمام أحمد أي سيدا كتجي دلين دليشان يا حديث أثر أي دليشان هيان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكله لقوا مركا هذه مسألة مختلفة تمييز كمميز كه وسيدي هل تصح أو لا تصح مثلا عند بعض تصح وعند بعض لا تصح لكن مذهب الشافعي محيي هاي هذه الأولى ما هو مذهب الشافعي ومثلا في وصية السبيل المميز هل تصح أو لا تصح؟ لا تصح المذهب لا تصح لكن في قول ما أعرف مذهب كقاركية هي مذاهب تكرا قاركيات بس إذا مالك أحمد وكلا تصح فأنت سمام ثلاث ولا رقيق حقيقة بحيسام عن صامرين تصح وصية كل مكلف حر سمعنا سمعنا طيب حركي قيد كيسي مارت حنت واحد كبح يمحون نقون هيا عبدي ولا رقيق إنما أنصحيس استقع بالليل مكتب هدول واحد صار دردار مي وحبا كم يشيرون روح يسوي بالليل وتصرف براهين محو دردار بقى وقيل قيل بوحوله إن عتق حدو حروب ثم مات أول انتو صحد وصحي صح سواء أدون وحوله هدان انتو واحد صار دردار مي وايه قيل كان دبواي markaasuu maaragtay uu xoroobay ba intuu sadhibanin buu xoroobay markuu xoroobay ka bacdi uu dhintay qiilku marka wuxuu leeyahay dardaarankii waagi uu adoonka ahaa uu sheegay hadda hala bixiyo masalada waadix sama qayb markuu dardaarmay hore muxuu ahaa adoon dardaarankii uu wali u taagan baa la xoreeyay xor uu noqday asagoo xor uu dhintay dardaarankii uu sameeyay markuu adoonka ahaa ما فليا مثل ما فليا قيل كدام فيرنا وفليا لكن قول كمذهب محولة هاي ما فلها هيو قول كمذهب كا يسوي ما فلها هيو لا معاه لي تصرف كيس ونن وصعنا معها وقيل كحولة إن عتق هدو حروب ثم مات هذا نقول أنتو صحت ويا صح صح هذا عبارة صحيحة مركن لفلنا ينوانين حرة ساسوله وإذا قرت أوصى ودردارنا ولي فاعلك يا لغا هدلايا موسيقي واي اوغاديا روحي موسيقي دردارنك بخينهي واي ايا لغا هدلايا marka waxaan oo مثلا uu dardaar ma hayana مثلا ma aragtay waa ruknigii labaad oo musaalahowgi ah meesha waxa kaaga bilaabanaya musaalahu wax dardaarmay waayo waa muusiqi waxaan loo dardaarmayna maxaan nidhi musaalahu marka ruknigii labaad ba meeshan kaaga bilaabanaya wada goortii awsaa u dardaarmo muusiqi ki dardaarmay lijihati jiho u dardaarmay waa musaalahowgi jihadaaso caamatin caamah waa caam sida masaajida iyo wixii lamida fa shardiga waxa weeyaan waxa la shardiyaa alla takuuna jihadaas inaysan ahayn macsiya jiha macsiya inaysan ahayn ka cimaaratin كنيسة الله عميره كلوية كعمارة كنيسة عمرتان كذا كذا طيب ماركتي أو ماركتي وحلوك القاعدة موسى له يبقى على بقى بابا إنه جهة عامة هي إنه شخصية جهة عامة الشروط بيانات دونتها شخص مركو يهينه يلا الشرط بمارك يا مري دوننا جهة عامة مركتها هاي
مثلا محل شرطية نبقى كل وحمان دردارمي أو جهة عامة ودردارمي شرطية محاد كفيرين إيسا ما جهة معصية مسوى جهة طاعة جهة معصية هذا يتهي ما انصحيس ما انصحيس ما انصحيس حولها إيجان مركان لنتو ثلث هلقوا هجاجي كنيسة لها أما هلقوا نسو أما كتب التوراة والإنجيل هذا اللي قرأ ملقيه المثل لقما يليه لقما يليه وجهة معصية وايه طيب فشرط وحويان ألا تكون جهة سويني سنهين معصية كعمارة كنيسة لعامره كلبه ويان وحاول الدليل هدي أترى الشيخه وحاول الدليل آيات عامك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مركا كنيسة محل إثم ما بس هو محل طاعة محل إثم ومعصية أو اللي شخص بقدر دارمي وحان ركني لبعض وموسى له ما يقول قيب سمايا جهة عامة إيوه جهة خاصة مركا مارت شخصي بأنه كذا جهة عامة إيوه شخصي أو لشخص بقدر دارمي فشرط وحوين أن يتصور وإن الصورة سنة يلوه يساق الملك لها شو روح وحيالان كرا وإن مارت الله صوران كرا لو فهمها إيوه هذا شرط روح وحلوة دارمي روح ما يالان كرا مسمى يالان كرا فشرط وحويان أن يتصور له إن الله صوريسته له للشخص واحد الملك لها شاء فتصيح مركا وأنصحي سايو لحمل بأنصحي سا هدو له قبلنا على شيء واحد كتير مركتي ثلث المالي هلا سيو ثلث المالي هؤلاء يستحملون مال هلا سيو هدو له طيب ما أنصح مثل ما أنصحي وأنصحي سا ما حيلا حمل وحبونا حلا سما عزومر إن حمل منه وحنا حلا طيب ولذلك حمل وحبوب ملكياه يا ملكنا يا قبضانا يا سووا لا على وش كجر الروح هذول انتم يا قدوميا وحا قدوميا وليس قدوميا ساسراد فتصيح وانصحيسا لحمل اوربي وانصحيسا وصيدي وتنفذ وين فليسايو ان انفسر وتنفذ وقرمتره وتنفذ طيب وتنفذ هذا تراهو marka waxaad ka cabiraysaa inuu yahay faacil وتنفذ وانا لفولين يا مركع ياضيه وتنفذ ولا فولين وتنفذ هذا مبني للمعلوم ويانا وتنفذ وصيه ويفول يساوى وتنفذ هذا ولا فولين ياوا وهي وتنفذ ويفول يساوى وصيه اما وتنفذ ولا فولين ان انفسر هذو صوبخو علمي علوش كجيره حيان اسغو نول او علم لا اوغادو وجوده جوغيتانكيسا عند الوصيه waxaa shardi ah ilmaha caloosha ku jira markuu wixii qaadanayo laba shay baa shardi ah kow horta waa inuu dhasho isagoo nool waa inuu soo dhasho laba waxa weeyaan waa in la og yahay inay islaantani uur leedahay islaantan uurkeeda waxa ku jira wax loo dardaarmayo waa inay uur leedahay waa in la ogaa مثلا duq baaba tayib awow wiilkaagi ayaa taagan islaantiisa uur lana way joogtaa islaantan uurkeedu wiilkaagu hadduu sii noolaado dhaxalka wax ma ku yeelanayo mise kuma yeelanayo xaala ibni buu noqday ibnigii baa jooga inaga soo marinay ibni hadday wada joogaan dhaxalka yaa iskale ibniga iskale ibni waxba ma laha markaasaa waxaa tii gabadha wiilkaygu qabo uurkeeda waxa ku jira maaragtay ayaa waxa u dardaarmay maxaa shardi marka kow horta hore ilmahaas inuu soo dhasho isagoo nool laba maxaa kaloo shardi ah inuu caloosha ku jiro seen ku ogaan karna marka su'aal meesha imaanaysa maanta inkastoo hadda ay maaragtay isbitaalli iyo qalab la isku baaran lahayo laakiin xilligii hore aysan jirin see lagu ogaan karaa ilmahan inuu caloosha ku jiro waa ka marka waayo in infasal hadduu soo baxo ilmi xayan isagoo nool oo culimo la ogaado wujuuduhu joogitaankiisa cinda alwasiya oo seen ku ogaanaynaa waxaan ku ogaanaynaa biin infasala waa inuu soo baxo oo soo dhasho لدون 6 أشهر 6 bilood wax ka yar qofkii markuu dhintay ka bacdi ayuu ilmihii dhashayna wuxuu ku dhashay ruuxii dhimashadiisa markaan ka soo bilowno muxuu ku dhashay 6 bilood wax ka yar waxaan ognahay marka waxaan fahmaynaa ilmahan inuu caloosha ku jiray intuusan awowgii dhimanin midaalka awowgan ku soo qaadanay Soomaa marka madal ka soo qaad awowgii marka 4 bilood sii maqan yahay
yuba ilmihii dhashay meesha maxaa kaaga soo baxaya markii duqu uu dardaarmayay ilmahan inuu caloosha ku jiray maxaa yeelay aqallu xaml waa maxay waa 6 ashhur asagana marka ilmahan muxuu dhashay aqalla min 6 ashhur marka inuu caloosha ku jiraa noo cadaanaysa واضح 100 مسلم واضح بأن انفصل وين صبح لدون 6 أشهر ساسا لو اوغاني عروش انو كجير فإن انفصل هدو كدشو او كصبخو ل6 أشهر 6 بلاد بو كدشي iyo فاكثر wax ka badan والمرأة ناقثين اما اسلامته حتى هذا ilmaha dhashay firaash zawj nin bay gogol ixaas u tahay aw ama sayyidin firaash sayyid bay xaas u tahay لم يستحق حلوة صحبه ملها وذلك مركو انت كبعد اياي محاي ماركتي محاي لا شيء لح بلاد واح كبدان محاي كل شيء الماء كل شيء طيب شرط ما انا هايو شرط يا محاي وجود وعلم وجوده سماهين طيب لح بلاد كبدان هدو كل شيء وحا سوره قال دب انو كابورمي وفهمت سما dib inuu ka abuurmay oo 6 bilood ka bacdi uu dhashaa suuragal ah waxa ay islaam la qabo marka islaamtu maxay ahayd islaam la qabo wal mar'atu firaash zawjin ama wal mar'atu firaash sayyidin firaash al walad lil firaash wal aahiri al hajar marka haweenka firaash wala dhihi karaa gogol oo macna haween ninkan marta xaaskiisi baa laga wadaa xaga luqada ولم يستحق الماس وحبا مالها 6 بلود بو كل شيء حبا ملي اسك تقبل كبدان بو كل شيء نين بانا قبي لبدا جيربا 6 بلود بو كل شيء نين بانا قبي اسلانتي حبا ملي دلمها sababta xawaan markuu duqi dardaarmay caloosha kumaada jirin baa suura gal ah walasluna adam alwujud wa inuu sin jirin baa asala marka maadaama shakiba uu soo baxay ida tadarraqa ila dalil ihtimal sama xaga haloo toora waa على اسك تورا هيا نبدل شيء كان على اسك تورا وافهم سبب ثلاث فإن انفصل هذو المي كسر شغل 6 أشهر بكل شيء لحبله يا فاكثر وحكى بعضا والمرأة سلامتنا فراش زوج نبي حاس واحد أو سيد فراش سيد باهين سيد قرن سلامته قبل نقطان يا مركي أدون تاي أمة طيب لم يستحق مارك الماء علوش كجري وحبايا لان ما هيو فإن لم تكن إسلامت هذا يسنهين فراشا حولي الماء علوش هذا كجري دا المرة شهر سيو إسلامتنا وح قبي ماله نين هرو قبي مويني مارك هذا وح سي قبي مالها فإن لم تكن هذا يسنهين فراشا وانفصل وصبح حولي أكثر وح قبض من 4 سنين فكذلك سدا ويو لم يستحق حبا من مضاريه حولي المها إسلامته سيدالي دون تهلا سيئو وحنينهم كوغين مالها وحينا كل شيء وحكبضا 4 سنة أور محا أوير 6 بلود محا أوبضا 4 سنة مركا 4 سنة واحد كبضا بكل شيء حبا هذا مالها لكن 4 سنة هذا كل الهيد وحبا يمضان وكل شيء هيا فإن لم تكن هذا ساحين فراشا جوجل أمارت حاس بس كده فراشا حاس هذا سنهين أو نين أين حاس أوهين أو انفصل المهن أصور شو صبحه لأكثر وحكى بدن من 4 سنين من 4 سنين 4 سنة وحكى بدن فكذلك سلا سو كذلك حاجة علم أي لم يستحق أو لدون إيش لدون 4 سنين ضميرك دون 4 سنين وعليا لدون الولد هذه هنا لدون 4 سنين 4 سنة وحكير يلمي كل شيء ما 4 سنة وحكير بو كل شيء ها استحق في الأظهر لكن ما شرط حقيقة العلم فإن لم تكن فراشا وانفصل لأقل لدون ما تيهر النقطة ما شاء سيكون تعلق فإن لم تكن فراشا وانفصل لدون 4 سنين 4 سنة وحكير بو كل شيء نين قبينا مالها waxaan garanaynaa in caloosha ku jiro istahaqa isaga qaadanay fil adhar qowlka adharka ee madhabka wayda goorta oo saa u dardaarmo li abdin adoon buu u dardaarmay fastamara waxa sii daayay riquhu adoonnimadiisa fal wasiyatu li sayyidihi sayyidkiisa ayaa iskale fa in ataqadu xarabo
qabla mowti lmuusi kii dardaarmay intuusan dhibin ka hor buu xoroobay falahu isaga ayaa leh wain cataqa hadduu xoroobo bacda mowti lmuusi ayuu dhintay uma qabila wuu aqbalay buniya waxaa ku taagnaanaysa masalada calaa ana alwasiyata wasiyadu bima tumlak maxaa lagu mulkiyaa meesha waxaa weya ninba addoon wax u dardaarmay wa in awsaa licabdin buu u dardaarmay addoonka haddaan dhintay addoonka waxaas hala siiya buui addoonkii maaragtay ninkii waa dhintay wax dardaarmay addoonkiina weli waa addoon wasiyadii yaa iskale nimayo wasiyadii yaa iskale ya sayid alcabdi baa iskale maxaa yeelay alcabdu wamaa malakat yadaahu lisayidihi waay addoon iyo wax gacantiisa ku jira yaa iskale sayidkiisa iskale masalada waadix aan malayn ayib masalada labaad waxaa weeyaan oo middaa daba socota addoonkaasaan wax u dardaarmay buui haddaan dhinto oo iga dambeeyo addoonkii yaaba waxaa la xoreeyey ninkii wax dardaarmay oo weli dhimanin ninkii oo nool ninkii dardaarmay oo nool yuu addoonkii xor noqday ayib markaasa haddana ninkii wax dardaarmay baa ka hor dhintay wixii yaa iskale masayidkaale mise addoonkii xoroobay baa iskale ya addoonka xoroobaa iskale addoonka xoroobay yaa iskale ila xor buu noqday muusigii oo nool buu xor noqday moogtahay hadda waa nin xora hadduu xoroobo addoonkii baaba xoroobayba markuu dhintay ninkii wax dardaarmay kabacdi markaasuu aqbalay hebel nin xora wuxuu yihi addoonka hebel haddaan dhinto waxaa xoolahayga laga siiyo intaa waa fahanteen soo maa isagoo addoona yuu maaragtay yuu dhintay isagoo addoona yuu dhintay markuu saa u dhintay addoonkii ninkii lahaa wuxuu yihi xor baa ta kolkaasuu isna wuxuu yihi wixii ninkii waagii uu ii dardaarmay hadda dhintay shalay dhintay ama maanta dhintay waan aqbalay addoonkiina saas waan aqbalay yaa iska leh ma sayidkii baa leh ma addoonkii baa leh masalada matnigan ugu tegi doonaa laakiin uu kuusoo hormariyee masaladaas waxay maaragtay ku dul dhismaysaa wasiyada maxaa lagu mulkiyaa saddex qowl baan ugu tegi doonaa insha allah wasiyada maxaa lagu mulkiyaa qola waxay leeyihin bilmowt qolana waxay leeyihin bilqabuul qolana waxay leeyihin mawquufa isaga inoo fasiri doonee qola maxay leeyihin qowl wuxuu leeyahay bilmowt ninka hadduu dhinto wixii la dardaarmay yaa iskale ama ha aqbalayuusan ama aqbalina kii loo dardaarmay qolada kale waxay leeyihin maya maaragtay wuxuu ku yeelan karaa inuu yidhaahdo waan aqbalay qolo kalena waxay leeyihiin oo qowlka adharka madhabka noqon doono waa mawquufa waan fiirin doonaayo hadduu aqbalana isagaa yeedha hadduu diidana isagu ma laha isagu maa loola noqon doonaa mawquufay leeyihiin ayib marka maaragtay hadduu marka xoroobo bacda mowtihi uma qabila buniya calaa ana alwasiyata bima tumlak haddaan idhahno bilqabuul baa lagu mulkin wixii yaa iskaleh addoonkaa iskaleh haddaan idhaahno bilmowti baa lagu mulkinna ya sayidkiisi baa iskaleh sooma intaan garanin ayib haddaan idhaahno waa mawquufana maaragtay kolba meesha maarata madhabkan ugu tegi doonaa iyadana mawquufada baa loola noqon oo maaragtay hadduu aqbaliy hadduusan aqbalin baa loo kala qaadi doona waa u tegi doonaa insha allah laakiin masalada maskaxda un sii gashada waa u tegi doonaa وإن أوساه هدو أدر دارمي لعبد أدوم بأدر دارمي فاستمر وحاد دائما رقه هدو نمدي سوى داسي دائمتي فالوصية لسيده وصية سيد كيسا إسكاله فإن اعتقد دونك هدو حروب قبل موت الموسي كيدر دارمي انتو صنبا هرت هدو حروبي فله أدونك إسكاله وإن اعتقد هدو حروب بعد موت الموسي كيدر دارمي انتو مارت انت كبعد بحروبي ثم قبل مركزوها دانا أقبالي أدونك كيبا وح أقبالي وصية وان أقبالي إن هذا حرب عن نقضاء بنية مسألة waxaa lagu dul dhisayaa ala anna alwasiyata wasiyadu bima tumlaku maxaa lagu mulkiyaa ala alqabuuli ala almowti bilmowti baan ujeedaa mawquufa saddex u tegi doonaa insha allah وإن أوصاه هدو دردارمو لدابة نيف حولاه هدان انت وحولي نيف حولاه سهلا سيهو نيف حولاه وحما ملكيا فقاد وحول بويكسي هالين موقت علمان وحول بويك هالين دردارمو لدابة نيف حولو دردارمي وقصد وحونا أولا قصد تمليكها إذا إني وح ملكيسو أو أضلقاء
ama uu iska idlaaqay oo wuxuu yidhi haddaan dhinto waxaa qaalintaa geela hashi uu jeclaa waxaa hala siiyo fabaadilatun waxba kama jiro wasiyadaas ila muusa lahowgii baad weli ku jirtaa ogow muusa bihigii maynaan gaadhin weli maxaan ku jiraa muusa lahowgii muusa lahow marka wax gudoomi kara waa inuu yahay inagii soo maraynin neef xoolaa wax ma yeelan kara mise ma yeelan karo neef xoolo ma yeelan kara ma yeelan karo marka baadilo way midda وإن قال هدول هذا ليصرف في علفها أيضا قود انت هذا هلقوا بحيانا فالمنقول وحويان سيدا لسوار نقليه صحتها ويصحيسا هدول هذا هدان دينتو نافك هبلا انت سوكن مرت علف هلوغا دغو وحلوغو علف wax xoolaha cunaan waxay cun leedahay loogu soo gado hala siiyo ma ansixi mise ma ansaxayso ma ansaxayso ما قولك مذهب كواي قول ولا حبك ما تشرب ناف حوله وحده حبك ما تشرب فإن أوصاحه دردار لدابة ناف حوله دردار وقصد وحوله قصد تمليكها ملكسين تهذا أو أضلق أبو اسك إطلاقي أو حبب ولا متشهد فباطلة وسيلة باطلة وين وحبك ما تشران وإن قال هدول هذا ليصرف سلوه بحيه في علفها إذا علفين هذا يقول انت هذا فالمنقول قولك منقولك مذهب صحتها ويان ويرفع عبر الظاهر صحتها وتصح ويصحها لعمارة وتصح فاعل كذا محون قلنا يا وصيادي يا وتصح وصيادي ويصحها لعمارة مسجد لو عمره مسجد كاس مسجد هلو دسو حوالي ثلث كذا مساجد هلو دسو مسجد هلو دسو وخلاف الآن مسجد كاس هدوب الدسية هنا كل ما وحي مساجد مساجد كلو قبن حولي ومساجد قدر دارمي مسجد كقدر دارمي أما مساجد وكذا وحاك له إسكان بنانين أضلق في الأصح هذو إسكان إضلاقوا إلى هذا حوله ثلث كذا مسجد فلان بقدر دارمي إذا هو أصح قولك أصحه ويحمل مركا وحال لو حمباريا على عمارته سي هجاجينت مسجد كا iyo masaalixi مسجد كا مصالح ليسه وهو لذمي وتصح الوصية لذمي ويا وصية هذا تراهض هذا دينتو قال كهبل وحا هلسي قال كذمي وقال مسلمين تلنور ويصح بلا خلاف العلماء اسكما خلاف سنة ويا maxaa waxa banaan gaalka in wax lagu sadaqaysto way banaan tahay dadkeen waxay moodaan gaal inaan sadaqa la siin karin wala siin karaa sadaqada tadawuca sadaqada waajibku ma la siin karin ama sadaqada tadawuca waa la siin karaa wayna dhacday oo wax xilligii salafka dhacay waa sidaas daraadeed gaalku maaragtay haduu yiraahdo xanta ruuxa muslimka haduu hadaan dhinto gaalka dhimiga ee muslimiinta ku dhaxnool waxa laga siiyo waana walaalaba ka soo qaadba haweenkii nabiga kaleey salaam qaarkood ayaa laga sheegaa oo laga soo wariyay ilaa loo diiday qaarud Aisha warsiya thulthkiisa siya maxay ku dhacay ittaqullahu wa a'duhu wasiyatu wasiya markaas thulthkii la siiyay marka walaalkeedu gaal ahaa marka thulthka maaragtay waa la siin karaa gaalkii dhimiga ahaa walidimiin xagee ku socodsan tahay watasihu li'imarati masjidin walidimiin xagaas adulcin وكذا سلاس او كله كوا ايغو خلاف لان لبدا مساله هره مسالهنا خلاف marka ku jira وكذا mid waxa la mid xarbiy iyo murtad baa la mid fil asah murtad iyo xarbina waa loo dardaarmi karaa murtad iyo xarbi waa loo dardaarmi karaa gaal xarbi ah thuluthul maal hal siiyo waa la dhihi karaa laakiin hubki iyo safety iyo waxa kuma jirto طيب maxaa yeelay in maartay hibi iyo sadaqa iyo وإسكان بنان تهاي وأنا قولك مثلا لقيا جمهور علماء قوان لكن أبو حنيفة رحمة الله عليه وقبل قولك لما هذا وحوله مايا مرتد إيو يحارب منا وصية لما سينا يمحايا إيجا وحويان إلا الدلوة لأننا أمرنا بقتلهم لما إلا الدلوة سما من بدل الدين فاقتلوه سما قال كحرب إلا الدلوة بنانين اللي معصوم الدم ما هين مرتد كل معصوم دم يجيس إلى شيء ما هين حبل الله مسين أبو حنيفة له رحمة الله عليه وياي قال هذا ما ركتي كلا أو مثلا ما ركتي كلانا أبو حنيفة رحمة الله عليه وحكوا له دليل شذا لا ينهاكم ودليل النقرية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مركا
xarbina waa nin diinkeeni dagaal kula jira sooma inala dagaalamahaya inaan waxba la siinin yaa saasa buu leeyahay abu xaniifa raxmatullahi caleyh waayahay fil asax waliqaatilin isagana waa loo dardaarmi karaa ku qaatila maalan masaladaas yaan idinka hoos bixine maarata murtadka waxaan ku jirin meesha haddaan tidhaahdo xoolahayga nin kastoo diinta islaamka ka baxa xoolahayga uludkooda ha la siiyo taa ma sax baa iyadu sax ma ah waa macsiya moogta midaas macsiyaa dardaarmaysa waaya marka middaa meesha kuma jirto dad badan baaba gaaloobay oo xoolaha raba inay qaataan sooma ayib waliqaatil oo saas kaloo ninkii wax dilo ruux muslima dila xoolahayga ha la siiyo haddaa tiraa ka waran ama ninkii reer hebel wax ka soo dila waxaa ha la siiyo waxaasa u dardaarmaya taana sax ma aha taana sax ma aha waaya waliqaatilinkii wax dilayna waa loo dardaarmi karaa fi ladhar maxaa yeele waa tamliigu iijaabi qabuul keenhaya marka hibadii waxaas iyadana u egtay iyo beecii waayo hadalka imaam maalig iyo imaam axmed iyo axad riwaayatayn imaam axmed qowlka dambe imaam shaafici iyo qowlka hore imaam shaafici bay qabaan oo adharka ah qowlka labaad waa baatil buu leeyahay abu xaniifa ayaana maaragtay qowlka labaad qaba waayahay marka qaatilka waxaa laga wadaa ruux baaba ruux dilayba maalan ya nin baaba maaragtay ilmihiisii dilay dhaxalka ma waxba ku yeelan laha mise kuma yeesheen dhaxalka wiilkiisii xoolo u dilayba marka dhaxalka wiilkiis markaa wax ma ku yeelan lahaa may qaatil buu noqon lahaa ma ogtahay laakiin wiilkii baa wuxuu yihi haddaan dhinta aabbahay xoolaha thuluth laga siiyo mid kale isku khilaafsan yahay mid laisku khilaafsan yahay mathalan waa mithaal ahaan maaragtay qole waxay leeyihin waa la siin qolo kalena maxay leeyihiin lama siina taa culama isku khilaafsan yihiin qowlka jamhuurtuna waa la siin waxba dhimala bay leeyihiin ilaan gaal ma noqonine hadduusan banaysanin dilkan waliwaarihin bay u banaan tahay wasiyadu ruux dhaxalka wax kule ma u banaan tahay mise uma banaano way u banaan tahay laakiin bishardin waarithin markay u banaan tahay shardi baa yaala waliwaarihin mid wax dhaxalka wax kula loo dardaarmi karaa fil adhari qowlka adharka in ajaaza hadday ogolaadaan oo baaqi lwarahati warahada intii kale soo hadhay ninbaa wuxuu yihi haddaan dhinto gabadha hebla ama wiilka hebla reerku u yaryahay waxaasaan u dardaarmay ama wuu u weyn yahay waa curadkii waxaasaan u dardaarmay hadday kolkuu dhinto ogolaadaan oo yidhaahdaan haye waa ogolaanay ma qaadan mise ma qaadanayo u qaadan hadday diidaanna oo yidhahdaan ma ogolin waxba laa wasiyata liwaarithin xadiidku waa midka xadiidna waxaa weeyaan maaragtay wuxuu lafdi kala wuxuu ku darahayaa ilaa inay ogolaadaan warasada ogolaadaan mooyeen marka lafdiga caamka oo laa wasiyata liwaarithin maxaa khasisahaya lafdiga dhahahaya hadday ogolaadaan oo iyagu ogolaadaan waa laga soo reebayaa aabba wuxuu dardaarmay haddaad iska ogolaataan oo tira war hebel aabba intuu dardaarma iska siino way bannaan tahay hadday diidaanna hadda wasiyo meesha ma taalo waa intaa waayahay walaa cibrata cibrana ma laha biraddihim diiditaankooda iyo wa ijaazatihim ogolaanshooda fii xayaati lmuusi kii dardaarmaya intuu nool yahay duqiiba wuxuu yihi haddaan dhinto wiilka hebela waxaasaan xoolaha ka siiyey thuluthulmaal hala siiyaba wuuna nool yahay kolkaasina waan diidnay ma waxbaa laga soo qaada diidmada maya xoolihii ninkii lahaabaaba taagan moogta maxay diidi karaan hadday yidhahaan waan ogolaanayna iyadan cibro ma laha goorma marka diidadii ogolaanshada goorma la kala fiirin doonaa hadduu dhinto waayo hadduu dhinto walaa cibro ma aha cibraba ma laha wax laga fiiro ma laha biraddihim diiditaankooda wa ijaazatihim ogolaanshahooda ay baneeyeen fii xayaati lmuusi kii wax dardaarmay noloshiisa dhexdeeda walcibratu cibraduna waxaa weeyaan bikownihi ahaanshihiisa waarithan uu yahay mid wax dhaxalahayo biyowmi lmowti dhimashada maalinteeda waa inuu maaragtay maalintaasi u waarith noqdo hadduu maalintaa waarith noqon waayo waxaa weyaan wuu yeelanayaa macnaa waxaa laga wadaa cibrada dambe waa maxay maaragtay nin baaba maalan wuxuu yihi wuxuuba lahaaba wiil lagu lahaa walaalkiina wuu joogay markaasuu yihi aabbo haddaan dhinto xoolaha thuluthka walaalkay siin
haddaan dhinto muxuu yihi xoolaha uludkooda walaalkiisii duqi oon dhimanin buuba wiilkii dhintay duqi oon dhimanin iyo wiilkii dhintay meeshii yaa soo haray wiilkii baa dhintay duqiina waa dhintay meeshii maxaa ku soo haray walaalkii kale ku soo haray walaalkaa markaa dardaaran ma yeelan mise ma yeelan hayo ya maalinta waxba ma yeelan hayo maxaa yeelay isagaaba waarid ah midda kale mithaalka kale waxa weeyaan nin baaba wuxuu yidhi maalan maaragtay walaalkii baa waarid ahaaba walaalkii yaa waarid ahaa wiilla ma uusan lahayn markaasaa maalan maaragtay uu maaragtay wiil baaba u dhashayba wiil yaa u dhashay markii hore walaalkii muxuu ahaa wax u dardaarmaya waarid buu ahaa ayib walaalihii baa joogo markaasuu wuxuu yihi hebel haddaan dhintay dadka walaalaha bal hebel gooni waxaa loo siiyo ayib hebel walaalihii unbaana markaa dhaxalkiisa iska lahaa sida inoo muuqata laakiin isagoo dhimanin baa maxaa u dhashay wiil baaba u dhashay ayib walaalkii hadda muxuu ka baxahayaa waaragtinimadii buu ka baxay waaragtinimadii yuu ka baxay sidaas darteed wuxuu kuli walcibratu cibraduna waxa weeyaan bikownihi kowni lmuusaa lahu maarata kan waaridka wax loo dardaarmay bikownihi kowni lwaarithi waaridka ahaanshihiisa oo wax loo dardaarmay waarithan uu yahay biyowmi lmowti dhimashada maalinteeda uu waarith yahay hadduuba ka baxay waaritnimadii maalintii dhimashada hadduu ka baxay taa waxba dhib ma laha ayib walwasiyatu wasiyadu oo likulli waarithin nin wax dhaxlay dhammaantii loo dardaarmay biqadri maaragtay xisadiisa qadarkeeda laqwan waxba kama jiro ayib wabicaynin cayn buu u dardaarmay hiya iyaduba qadruhaana qadru xisatihi ay tahay saxiixatu way wataftaqir waxayna u baahan tahay ila lijaazati fi lasax ayib masalada dambe waxaa weeyaan nin baa wuxuuba leeyahayba gabadhii wiil buu leeyahay wax kaloo dhaxlaya ma jiro markaasuu wuxuu yihi haddaan dhinto xoolaha 3 meelood intaad u qaybisaan 2 meelood wiilka siiya meelna maxaa la siini gabadha la siin soo calaa qadri xisasihi ma ah lidakari mithal xadil unthayayn bayba noqon lahay soo maaha taa wasiya miyaan dhahaynaa ma wasiya ma dhahayna taa macno ma leh wax macno ay leedahay ma laha maxaa dhaxalkii baaba imaan doona kaas isaga waa qodobka labaad waxa weeyaan wuxuu yidhi nin baaba wuxuu ka tegay wiil iyo gabadh buu ka tegay markaasuu xoolana wuxuu ka tegay 3 qaalmood oo geel oo ismaarta ama 3 balood ama 3 gaari ama 3 guri waxa tiraahdaa marka wiilku meequu yeelan lahaa 3 qaalmood gabadhuna maxay yeelan lahayd hal markaasuu wuxuu haddaan dhinta qaalinta heblaha gabadha heblaha la siiyo waa qadri xisatiha moogta tii hore calaa qadri xisasihim bahaydo qaybin buu sameeyey tanna waxa weeyaan hal ruux buu wax u dardaarmay kulligood ma ahaya hal ruux oo waarid wax u dardaarmay dardaarankiisa haddaan fiirinana waa maxay waa qadri xisatihi midaan maxay ugu baahan tahay iyada markuu dhintay kabacdi inay ka ogolaadaan waraasada oo walaalkeedu inuu yahay qaalintii qaado ama baloodkii qaado hadduu diido oo yiraahdo baloodka aabba uu ku siiyani ma ogoli waynu qori tuuranaynaa wixii kugu sahayaan arkaynaa wasiya noqon maysa laga yeeli maayo waa fahanteen soo ma ayib walwasiyatu wasiya oo likulli waarithin nin kasta oo dhaxalay loo dardaarmo biqadri xisatihi xisadiisii wax leeg uu dhaxalka ka lahaa ayaa loo dardaarmay laqwan waxba kama jiro wabicayni cayn baa loo dardaarmay ruuxii waaridka hiya iyaduba qadru xisatihi intii uu qaadan lahaa la-eg saxiixatun waa sax iyaduna qaadan wataftaqiru laakiin maxay u baahan tahay wasiyadan dambe ila lijaazati ogolaansho laga helo warasada fila sax watasixu bilxamli meeshan waxaa ka bilaabanaya ruknigii 3aad oo ahaa muusaa bihi maxaan soo baranay muusaa lahu hadda maxaan u gudbaynaa muusaa bihi wax la dardaarmaya muxuu noqon karaa ruknigii 3aad waa ka marka
وتصح وأصحى بالحمل وسيد وموسى به وشيء الدردار بعد دارت وبه مات بعد مات موسى به سمعنا اللهين تصح موسى بالحمل سمعت موسى له بين وحبوها موسى جن وحبيه وتصح وأصحى وسيد بالحمل قرب يكون أصحى بشرط انفصاله إنه صباح يا شرط وحيا يسوع النار لوقت وكسر بحو يعلم اللوجه وجوده عندها عند الوصية وصوم الرسول اللي هو أجانا يعني وبالمنافع هي وصية كو أصحدا وكذا سيدا وحال مذا بثمرة مليه جيت كسارة أو حمل أمور سيحدثان ودبك إيمانية في الأصح سيدا الصحدا وبأحد عبديه لبديس أدون متكوت بكو أصح وبالنجاسة مارت النجاسة كو أصحدا يحل حلالها الانتفاع بها إلا انتفاع سوى ككلب معلم أي وحلا براي أو كلوي وزبل مارت الدقادي يو خمر ومحترمة ومارت محترمة لحرمية ساس ويان مرقا وحويان وصيادي ماشي محاكا عقصوا بحي وصيادي وحيكون صحيح سوى رقني صدحاده مسابيه مجهول يا معلوم انت ويكو أصح انت ما مهمة وحا مهمة إنا دوقات وصيادة وحا بنان شيء معلومة هي شيء مجهولة شيء مقدورة هي شيء غير مقدورة انت ويكو أصح مقدور التسليم واحد هذا اللي بحين كرم يا واحد اللي بحين كرم يا واحد شوف يا واحد مقن انت وصيادة ويكو أصح وفهمت سوما انت ويكو أصح قيدة هيقا واحد لالي دونان qaalinta maartay hasha waxay dhali doonto gabadhayda adoonta waxay dhali doonto oo waxa la haynin moogtahay maartay ma caloosha gabadheeda caloosha waxa ku jira ama qaalinta saca maartay waxa ay rimantahay hebel hala si hadaan dhinto kullaha maartay iska asaxaysa kullaha iska asax waxa kale oo asaxaysa shay qaahira isagoo bittifaaq shayga nijaasta waxay ku asaxaysaa wasiyadu inuu yahay shay muntafac bihi لانت نعفستو سيده ايغا تببران او كاله هدان دنت ايغا ان كو ugaarsan jiray hebel hala siiyo waa ay muallama sama ايغنا من نجاس ما سوا ظاهر ونجاس واي هدان دنتو digada meesha ay taala in xoolaha ila shaafiicida digada inay nijaastay qabaan moonto inay soo mareynay digada xoolaha digadana waa la nacfsa beeraha ayaa maartay lagu waxaystaa lagu bacrimiyaa oo maartay dhulka lagu shubaa suma digada xoolaha si geedihi si fiican ugu soo baxaan digada xoolaha meesha ay taaleen raba inaan nacfisto hebel hala si hadaan dhinto ma banaanta ma banaan ma banaanta maqaarka neefka baqti maartay rida iga baqtiday maartay maqaarkeeda hadaan maanta dhinto hebel hala si hamagdiste waa nijaas muntafaca la nacfisto waxyaalaha saas oo kala way iska banaan tahay waxa kale iska banaan waxaan la haynino waxa dhihi kartaa geedkan timirta wuxuu dhalo hadaan inta hebel hala siiyo hashaan marri mana hashaan haday rinto waxay dhasho hebel hala siiyo hadaan inta idan iska banaanta bacduumki waa وتصيح وأصحدا وسيادي بالحمل بيكون أصحدا أور بشرط انفصاله إنه صوبح شرط حيا يسوي النور لوقت إنه يكون صوبحه وقت يصل علم الأوجه وجوده شويتان عند الوصية والصوم الراي وبالمنافع بيكون أصحا وصية المنافع بنانتهاي وكذا وحال مذا بثمرة منه أو حمل أما أوركي وسيحدثان في الأصح دبك إيمان دونه سيحدثان صار دلان دونه في الأصح حال معدوم كوي بنانتهاي وهي عقد المساقات إجازي وحيالها إجامات إجارية وحيالها نوع سوكلا هذا بنانادين تنوي بنانتهاي كلها وبأحد عبديه وحولي أدوما ما أنت ما هنا وحول هذا أنت اللي بدأ يذكري متكوت موسى شكل شيء مارت أما جيري قارن كمده موسى شيء قارن تمده أي تاي أما الله ضينا ما أرجعك أما بلادي ضينا يدل كيك أما جارية بدأ نقطها بأحد عبديه وبنجاسة بيكون أصحدا نجاسة سيحل وحلالها الانتفاع بها إن لنعفسته نجاسة كقارن لنعفسن كريم بيشتري سيد الضوافار كوكله sida dafaarka kale wax loo nacfisay isagu malaha caana lagama maalo hilibkiisa lama cuno maaragtay ugaar lagu ugaarsado kaas oo kale hal yujuz intifaac bi aw la yujuz marka taas oo kale lama dardaarmi karo laakiin nijaasada haday tahay muntafac
sida maqaarkii neefkii baktiyay oo kale maalan aygii mucallamka oo kale digadii haddaan madhabka shaaficiyada qaadano digadii xoolaha oo kale waa muntafac طيب سريدي نجاسودي متنجسة هاي ما ركتي كوا متنجس النجاسة لا أيوة معه مرجع هذيك متنجس أم النجاسة وحنا نغضبه يجلس الانتفاع به واسكبنا نتح وبالنجاسة بابنان والنجاسة يحل وبناء الانتفاع بها إلى النعفس ككلب معلم أي وحلا براي وكلب ويان يو زبل دقدي يو خمر مارتي خمردي أو محترمة iyadana la xurmay waa khamra ruuxu sugahayo inay khal u noqoto khal marka waa muxtaram moogtahay marka inaad iska haysato si khal kugu noqoto meeshaas ay kugu taala khal ugu bedelado way iska banaan tahay waa khamro markaasi ma aragtay waxaa kamid ah maalan xoolaha baktiyay maartay baruurta laga shiilay iyo maaragtay neefka geela baktiyay kurskiisa hadii la soo gooyo maalan waxaa la marsadaa doomaha iyo waxyaalahaas ayaa la marsadaa Soomaa maraakiibta iyo yudla biha sufun saxadiid ma ahayn marka kuwaas oo kale way iska banaan yahay iyagana ila waa maartay waa muntafac waayaan walaw saahdu dardaarmo bikalbin ay buu dardaarmay oo min kilaabi ayadiisa kamida ucdiya wala bixinaya ahadaha midkood ay ayadeyda kamida hadaan hebel hal siiyo mid baa la siin fa lam yakun haduusan lahayn kalbun ay haduusan lahayn laqad wasiyada waxba kama jiro wuxuu yiri hadaan dhinto ayaalka ii jiro mid kamid hebel ha la siiyo wala siin wuxuu yiri hadaan dhinto hebel ay baan u dardaarmay ogaada ayna ma baraha ninki uu dhintay asoo waxba ay arahayn maart wasiyadaasi ma la fulin mise lama fulinayo hadii la yiraahdo hal la fuliyo waxay noqon lahayd ay in loo soo gado ayguna maartay si baacis ma banaayay mise ma banaano Soomaaliya ka soo mareynay marka haduusan ay barahayn waa wasiyo laaqi ah فإن لم يكن كلب أي بهدوسا جوجن هدوسا هين فإن لم يكن هدوسا هين كان ومد التامضة هذا كلب أي بهدوسا لغد ولو كان له هدوية مال بولاه وكلاب أيال بولاه ووصى بها يذهب دردار أو بعضها فلا صح وحويان نفوذها وفليسا وإن كثرت هوا بدناته وقل المال حولها بير عضاره وحول ولو كان هذا له يسقي مال وكلاب حولنا وله أيال وله ووصى بها كلابتي بدردارمي أو ببعض الكلاب بدردارمي أي قرن هلا بحيو وح أي شو نبه هلا دردارمي ما يقول أي قار هلا بحيو قار هلا دايو فلا صح صحني ماذا بدل نفوذ وصيادة ويفولي وكو وإن كثرت أي هبطت تدورها حرموجي أي هذا ما رأيت ويفولي أيالك ولا بحين وقل المال حوله هذا دون هوا يرابان لما دهايو ثلث هلا قيبيو أو ثلث هلا مار ثلثين كين هلا ريبا كذا هلا اسكوع العليا لما دهايو محل دهايا أي قاس دو ولا بحين هيا وقل المال حوله هوا يرابان ولو أوصى هدو دردارمو محو دردارمي بطبل مارك دربانكي لتوبي جري وله حلاه طبل لهو مد مارت لغو عياره iyo qablu دربان ويحل وحلال الانتفاع به إلا نعفسته كطبل حرب دربان كدقال كلو قراعي تري وحجيج حجكي سفر كي ويانا حمل وحالقو حمارة على ثاني متك لواد ولو ساهدو دردارمو بطبل الله ويبو دردارمي لقد لاقب ونقنه إلا أن يصلح إنه أصوبه لحرب دقال أو أمس حجيج حج إنه أصوبه مويان ماشي وحويان وشيء لدردار ما يقولوا كجرا ركني صدحاده نبا وحول دربانكيga hal bixiyo durbaanka daan durbaankiga hebel hal si ama hal bixiyo ninkii waxaan fiirinaynaa durbaankiisu noocee waay durbaamada meesha u yaalo gurigii baan tagno waxaan ku aragnay laba durbaan mid waa midkii muusiga lagu tuman hayay oo dhow laga siinhayo muusiga iyo dambiga ahaa midna waxa weeyaan waa mid xalaal ah illa nacfisto ila ma aragtay waago hore durbaanka telefoonada lama haysan waxbana lama haysan saacada lama haysan durbaankaas markii la safray iyo markii jihaadka la aadiy markii xajka la aadiy loo garaaci jiray dadka markii lagu dhufto waa soo kacay socdaay dagaay kulba si baa loo isticmaali jiray hadii la furanayo hadii la guurayo hadii ciidankii loo isugu yeedhayo durbaan baa loo garaaci jiray marka midka waa xalaal in nacfisto moogtahay
kii muusigii heesta lagu tumanayana muxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa laba durbaan baa meeshii yaala keen bixinaynaa ma kii xaaraantaan bixinaynaa mise kii xalaashaan bixinaynaa kaasaan ku xambaaraynaa ayib wuxuu yidhi haddana maaragtay wuxuu yidhi ha la bixiyo oo maaragtay ha la ii sadaqeeyo oo wasiilada la iga dhigo durbaankaan muusiga ku tuman jiray dhidhidh ka siin jiray kaa ha la bixiyo yidhi ha la ii sadaqeeyo waayahay wasiyadaasi ma fuli mise wasiya laaqiya miya mise wasiya saxiixa laaqiya waay dembi kuma kaalmaynayno laakiin waxaa la fulin karaa haddii la bedeli karo oo laga dhigi karo mid dadka lagu kiciyo oo maalan soonkii loogu kiciyo xujaajtii ay isticmaalaan oo maaragtay jihaadkii lagu aado hadduu yahay mid suuragala ha laakiin hadduu yahay midkan askaruhu tuntaan askara waxay tumayaan waa durbaan mogti durbaanka birta ah iyo midkii kaleba way wataan markay ama wax salaamayaan ama maalinta maalan ay leeyihiin waa maalintii qaranka ama kada waxaan ay dhowdhacda ku hayaan waa durbaano soomaa iyo garidii wixbay isla afuufahayaan kuwaasoo kale hadday yihiin haddaan loo isticmaali kara xajkii iyo jihaadka loo isticmaali kara ha haddaan loo isticmaali karinna waa maya waa laaqiya waa walow saa hadduu dardaarmo bidablin durbaan buu dardaarmay walow wuxuuna leeyahay dablu lahwin mid oo maaragtay lagu ciyaaro durbaan ciyaar iyo wadablun dabl ku kalena uu leeyahay kaasoo yaxil uu xalaal yahay alintifaacu bihi in la nacfisto oo ka dabli xarbin kii dagaalkii jihaadka loo garaacan jiray iyo waxajiijin xajka loo tumi jiray weeyaane xumilad waxaa lagu xambaaraa cala thaani oo midka yaxilu lintifaacu bihi ah in la nacfisto midku bannaan yahay lagu xambaari walow awsaa hadduu dardaarmo bidabli lahwi kii ciyaarta buu dardaarmo hala bixiyo laqad wasiyada waa laaqiyo waa ilaa an yasluxa inuu suubado midkan dabligaani lixarbin dagaal aw xajiijin in loo isticmaalo dagaal ama maalan xaj in loo isticmaalo inuu suuragal yahay mooyaane laqu buu iska noqon hayaa hal saac markaan bilaabna 5 daqiiqo ka dhiman 10 yar saaka waa akhrin fasalka ma iskaga daysanaa ya 10 ma soo ma yareen ya 5 daqiiqo ka hadba waqtiga bilow hal saac waan wadi jireen 5 daqiiqo aan ku yar darsano wax yar kaga darsano fasal ya fasalkan maaragtay isagana waxaa maaragtay uu kaga hadlahayaa waxa ugu badan ee la dardaarmi kara muxuu yahay waxa ugu badan ee ruux xoolihiisa uu dardaarmi kara muxuu yahay yanbagii waxaa fiican allaa yuusiya inuusan dardaarmin biakthara culamada qaar waxay ka cabiraan laa yanbagii akthara maarata laa yanbagii an yuusiya biakthara min thuluthi maalihi saas qaar ka cabiraan qaarkoodna yanbagii qaarna maarata yukrahu bay dhahay tukrahu alwasiyatu bima zaada cala thuluth ayay qaarkoodna ka cabiraan haddii waxa thuluth ka badan inuu dardaarmo ma fiicno maxayna daliil baa kusoo arooray oo diidan maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii la dhihi jiray sacad ibn abi waqaas markuu xanuunsanay markuu yihi xoolahayga ma wada bixiyaa waa laga diiday soo ma ayib nis ma bixiyaa buu yihi ma laga ogolaaday mise lagama ogolaanin waa laga diiday marka thuluth wax ka badan meesha kuma jirto thuluth ka baa la bixin kara maxaa u daliil thuluth in la bixin karo xadiiska naftiisa u daliil thuluthu wa thuluthu kathiir thuluth ha wuna badan yahay ka yaree baa laga fahmayaa ينبغي وحاول هبون الله يوصي إنه دردارمين أو بأكثر وحكا بدن من ثلث مال حوله صدح ميلود لو قيب ميل وحكا بدن يوصل دردارمين بافي عن مارت محاران بمس حاران معها طيب ومصرف فإن زاد هدوك الزيادية أو رد الوارث وارث أوديدو بضلت في الزائد بكبريسا نبا بحول حولها يقدان انتو لما ميلود هلو قيب يوم ميل هلا بحيو markuu dhintay iyo warahadii waxay dhaheen maya ma ogolin saas marka wixii thuluth ka badan baa la soo celin laakiin thuluthkii waa la fulinayaa ومثلا واضح سماه فإن زاد هدو زياديه ورد أي ديدان الوارث وارث كي أوديده بضارد وسيد ويبرتي في الزائد انت زائد كي كبر كل قد مبر يسمى حبرية انت زائد وإن جاز وارث هدو قرادانا فإجازته
maaragtay ogolaashihiisaas tanfiidu fulin waay وفي قول وحوله عطية سيسمه وهي مبتدأة لباللوضي سنة كلا فهمه نبا وحوله حوله لو ميل الله قيبيو ميل هلا بخيو هدان دنتو ورثدينا way ka ogolaadeen marka ma waxaan dhahaynaa hadalkiisii bay fuliyeen mise waxaan dheeraadka iyaga la baxay ay sadaqa u tahay inta dheeraadka inta thulthka dheeraadka ka haday ogolaadaan ma iyaga sadaqa u tahay mise isaga sadaqa u tahay يا قول حوله يسقي صدقه وتاهي قول حوله ما يا ايغي صدقه وتاهي هذا باللودين او ايغا اوغلادايو xoolaha ninkii la uu dhinto iyagu wuxuu god ku soo wareego inta dheeraadka sadaqadeeda yaa iska leh iyaga iska leh macnaheedu labada qowl way ina jaaza hada uu ogolaado waaridkii fa ijaazatu ogolaashiisu tanfiidu fulin waayaan oo waarid maartay muusigi wasiyadiisi fuliyay وفي قول وحاكو سقنا مايا عادية سيسمة واي مبتدأة لباللوضي أو باللو هذا لباللوضي والوصية وصية بزيادة وزيادة ودردارمه لغو محبة كما تشيره والوصية وصية بزيادة ديران لا دردارمه لغو مارتي محبة كما تشيره طيب بزيادة الثلث أساس هذه قربينك طيب ما حيا لا ما ركتي مر بهدي لي هذا وعضيه مبتدأ اما ما هي مثلا وكذا مارتي وحبا وصيه زياده ثلث كبدن وحبا مارتي محبا مكيني واسك لقوي maxay nahi ba ku soo arooray Soomaa wanagu والوصيه دردار بزياده ديراد لا دردار ثلث wax ka badan laqow وحبا كما جرى وتعتبر المال ويعتبر ولا في المال ما حوله يوم الموت ما انت دمشده لا فيرين ما انت دمشده ايا لا فيرين ثلث المال كان شيغينو ما انت ولا هدان انت حوله ثلث هلا بخيا مس مال انت او دنتو يا ثلث كودا لا فيرين يا ثلث غور ما لا فيرين يوم الموت ما انت دنتان حوليسي حسابنا ثلث ما انت بيش سو كسو بخايا وفهمت سوما انت نولا لما تابانay xoolahi وقيل وحلا يوم الوصية مالك دردار ما هي ولا فيرين مثلا كسوقات مالك دردار ما يهدوا هذا حولها يقال صدح ميلادو ميل هلا بخيو او صدن سعرها مالك ودنتين او 9 سعرها ما قسع ولا بخين يا هذا قول قيل كده بقى هذا 8 ساعه ولا بخين حال مالك دردار ما يقولها صدن كي مارت محاو ثلثه 8 سما طبعا كاس على بحنايا لكن قولك مدامك waxa weeyaan maadaama xoolihi ay bateen oo maalintu dhimanay 9 noqdeen 30 baa la bixinaya ila maartay 9 maxaa u thulutha 30 وكم معنى اساس وقيل حول يوم الوصيه maalinta dardaaranka ويعتبر والله فيرين من الثلث ايضا ثلث waxa laga xisaabi ويعتبر والله فيرين waa laga xisaabi من الثلث حقيس ايضا عتق حرينتاس علق lagu xiray bil mawt dhimasho iyo tabarru'an oo maaragtay nujza la gooyay oo fi maradihi ka waqfin iyo wahibatin iyo cidqin iyo ibraa'in bawayaane واذا اجتمع هذا كل ما تبرعات متعلقه lagu xiray bil mawt oo عجز الثلث oo ka yaraado فإن تمحض هذا أبرح لهذا العتق أقرع ولا قريتوري أو غيرك أبرح لهذا قصد الثلث والله قيبيا أو هو عتقه وغيره قصد بالقيمة والله قيمة وفي قوله حلاه يقدم العتق بالهر مرين هيا سنة حويان لما بحول هدان انت حوله ثلث كوذا هلا بحيو وكو ثلث كهلا بحين هيو وحاكو جرى حرين باكو جرا حرين ادون بوري هلا خريو ادونكا حاجه laga xoreyn ma gooni ba loo xoreyn mise thuluthka laga xoreyni ya thuluthka laga xoreyn waaya saddex adoon buu leeyahay mesela markuu dhiban saddex adoon buu lahaa maxaa uu thuluthka saddex hal meel kale laga mar raadinay adoonka aan baa la xoreyn thuluthkana laga ictibaarin waa fahanteen Soomaa ساسو كلا تبرع مثلا وحو يري هدان دينتو
maaragtay haddaan dhinto waa xanuunsanayay oo jirada u dhintay wuxuu yidhi haddaan dhinto maalan dhulkii hebel ha loo qof waa koow gaadhigii hebel haana hebel ha la siiyo waa laba addoonkiina ha la xoreeyo waa saddex dayntii aan hebel ku lahaana ha laga dhaafo deeqsinima ka muuqata maanta ruux dhimanaye waa maaragtay wuu nuglaadee wax walba iska ogol yahay marka intaas oo maaragtay tabaruc buu sameeyey waqafka waa iska tabaruc wax bilaash lagu bixinayo deynta oo la dhaafo waa tabaruc hibada iyo waxaysiinta waa inagii soo marayna waa iska tabaruc cidqigu waa iska tabaruc intaasoo dhan buu sameeyey ayib xaggee laga raadin intaasoo dhan maxooliba dib loogu foofi maya thuluthka unbaan ka fiirinaynaa hadduu deeqa waa khayr hadduu deeqi waayana maaragta sida la yeelaya isaga kuu sheegi doona hadduu deeq waayana waan fiirinaynaa waayahay waxaa marka kuu soo baxay masalo kalaa tabarucaadka hadda aan sheegayno wuxuu yidhi haddaan dhinto xoolahayga thuluthkooda waa waqaf thuluthka maaragta wuxuu yihi maalan waqaf ha laga dhigo oo maaragtay hiba ha la bixiyo oo maaragtay deyntii ha la dhaafo wixii dhan baa isu yimid wixii dhanna waxay ku xidhan yihiin dhimasho thuluthki markaan fiirinay wuxuu yihi masjid ha laga dhiso maalan thuluthkan wuxuu yihi masjid ha laga dhiso waa koow hebelna inta ha laga siiyo waa laba deyntiina ha laga cafiyo waa saddex oo ha laga gooyo wixii deyn hebelan ku lahaa wixii thuluthki haddaan fiirino wixii waaba gaari waayeba wixii waa gaari waaye hana laga xoreeya baa ku jirta wixii waa gaari waaye waxaan fiirinaynaa waxaan kulligii ma cidqibaa waxaan kulligiis ma cidqibaa ha hadduu cidqi noqdo waa u qori tuuraynaa thuluthkiisiba maalan maaragtay wuxuu noqdayba wax un kulligiiba wuxuu yihi haddaan dhinto hebel ha la xoreeyo oo hebel ha la xoreeyo oo hebel ha la xoreeyo oo hebel ha la xoreeyo wuu tiriyey ama maaragtay addoommadii inta ha laga xoreeyo intii haddaan fiirino thuluthkii waa ka badan yihiin maxaan samaynaynaa addoommadii baan u yeedhaynaa lalaha ha la xoreeyo thuluthkooda ha la xoreeyo waa u qori tuuraynaa kii qorigiisuu soo baxa muxuu noqonayaa xor buu noqonayaa kii kalena muxuu ku hanayaa addoonnimadii buu ku hanayaa waa loo qori tuuri iyada waa masalada kale waxaa weyaan cidqina uu ku jiraa wax kalena uu ku jira qusida thuluth waa la qiimeyn oo qiimaha loogu qaybin macnaa waxa weyaan wuxuu yihi hana la xoreeyo masjidna ha laga dhiso umana qaybsami karo waxaan dhahaynaa addoonka qaybtaasu xor ka noqon ayib qaybtaana masjid ha lagu dhiso qusida waa loo qiimay ayib addoonka ma aha tan hore waxaa weyaan wuxuu yihi masjidna ha laga dhiso agoontana waxa ha laga siiyo kadaa marka suuragal maaha in masjidna laga dhiso agoonna wax laga siiyo waan qaybinaynaa masjidkana wixii kusoo hagaagaan arkaynaa maarata agoomahana wixii kusoo hagaaga yaan arkaynaa waan loo kala qaybin macnaa hadduu yidhaha thuluthka thuluthkiis iyo thuluthka rubiciis waa loo kala qaybin adiga saasa lagu kala qaybin meesha cidqi iyo keyrkii baa ku wada jira cidqi iyo keyrkii baa ku jira qusida bilqiima isaga loogu qaybin qusida bilqiima ayaa loogu qaybin oo qiimahaas maalan xorayntii maxaa ku hagaagtay intaa masjidkiina maxaa ku hagaagay intaa waa bilqiima ayaa loogu qaybin midaa qowl isaga wuxuu leeyahay cidqigaa la hormarinoo wixii cidqi ka soo hadhaa la arki ayuu qowlkaa leeyahay wayuctabaru waa la fiiriyaa min athuluthka waxaa laga fiirinoo laga xisaabi aydan cidqun xorayn oo culliqa lagu xidhay bilmowt dhimashada lagu xidhay waa sidii mudabarkii xadiidkii nabiga calai salatu wasalaam uu qeybna xoray qeybna uu soo reebay wa tabarucun tabarucaasoo isagana nujiza la gooyey oo fii maradihi la gooyey tabaruc hadduu mucallaqi waan gaari doonaaye kan waxaa wa tabarucun tabarucaasoo nujiza la gooyey aan waxba lagu xidhin fii maradihi markuu xanuunsanayay ka waqfin weeyaan tabaruci iyo wahibatin wax la bixiyo iyo wa cidqin xorayn oo iska tabaruca wa ibraa'in dhaafitaan deyn la dhaafo iyagana kuwa xaggee laga bixinayaa thuluthkaa laga bixinayaa kaa garanay waidaa goorta ijtamaca marka ay kulmaan tabarucaat sida waqafki iyo wasiyadii iyo deyntii la cafinay iyo cidqigii inta way kulmeen waayo mutacaliqatun lagu xidhay oo bilmowti dhimashana way ku xidhan yihiin oo haddaan dhinta buuri wacajaza thuluthkiina waa deeqi waayo uu ka yaraaday waxaan fiirinaynaa
فإن تمحض ثلث كاسب كل جيب هدوها العتق هدو برح بالي بكل جيب هدو عتق أها طيب وحي ودنا أن الحرين كرين وقرع ولو قريتور هيا وقرع ولو قريتور هيا نينكي قريgiisu soo baxa marka xor noqonaya wixii karana wixii soo harana ma aragtay adoonimadooda ku haraya sida xadiidkii lixdii adoon ee ninkii uu lahaa ee uu tadbiiriyay ee deyntii ama noloshiisa iskeen weyda baan u jeedaa ee nabiga calaysay intuu qori uu qaybna gaday qaybna u reebi jiray soo ma garanaysaan saas oo kale u baa sameeyay ila kulligood waa cidqi kulladan inta xor baa tiin buu moogta daan inta muxuu xor baa tiin noloshiisa ciriiri gashay nabi muxuu sameeyay uu soo qabtay waa loo qori tuuray qaybna marka xor bay noqdeen qaybna adoonnimada ku haray soo maaragis saas oo kala waay saas oo kala noqonaysa waa loo qori tuuray hadii kulli uu wada adoomo la xoreyn ay ahaayeen waa loo qori tuuri qaybtii thuluthka noqotana waa la xoreyn laba lix bay inaan ka soo qaad laba thuluthka noqono labadaas maartay lixdoodiiba waxa warqadaha loo kala qorayaaba مثلا ilaan maartay qori tuurka warqadii oo kala waay حر لما لح محاول ثلث مثلا يعني لما سووا ثلث ما لما وحال قرية حر بالقري أفرتي كلنا ورقة عضبا والله قاعد يجيبها أما بلا حر قاعد تجريها ليه لما دي حر لما دي نين قاعدة محين قرية ثلث كي بين قريان محين قريان حر بين قريان مارت إلى ثلث كي مارت وعجزين ولا كيلو أساس كلام فإن تمحض هدو برح باله ثلث العتق وبرح لا وحكى لا صعد ملها أقرع أدمده لو قريتوري أو غيره أي تمحض الثلث غير العتق واي غير حاجات ضميرك على النساء غير العتق وبرح باله قسط الثلث ثلث كما لو قيبياه يقول روحي كيسو هاغا لا سين العتق ماشي كوما جيرين أو هو عتقه وغيره غير العتقنا قصد بالقيمة بأسجنا لو قيبن قيمة لو قيبن وفي قول حلاه يقدم العتق عتق على هرمرين بو قول الله يسوي قولكم مارت يسوي حلاه مارت عتق شريعة مارت ذاتك كوب الرداية عتق على هرمريو ساسولا أو منجزة ووصية منجزة هم الوحى هلا سيو هذانا هبل وحى هلا سيو هذانا هبل وحى ارتساس كله قدم وحى الهرمريا الأول فالأول سيكو الهريين حتى يتم الثلث إلى وكدماده واي إلى ويك الهريين الأول فالأول بالغو هرمرين الأول فالأول كهري كان بالله معك سهاري كان كحجسي معك سهاري كان فالأول فإن وجدت هذه لهلا دفعة هالمرة واتحد الجنس يسكن من نقضة كعتق عبيد بويان أو إبراء جمع بريالتان كذويان وقرع في العتق وقصد في غيره وتهدى سمرينه وإن اختلف أو تصرف وكلاون أي تصرفان فإن لم يكن فيها عتق هدوسين قصد وإن كان قصد وفي قول حلي يقدم العتق على هرمرين هياه ماشي أو منجزة وصيده ومدقو أنا وحبا شرد كحرنين وحشرد كحرن مالها ووصية منجزة وياهي وما محي وحري ووقفي وصدقيستي وبري وكدغي وهبيي وحبدا مسكو دار تبرعاده قدم الأول كي وري الهرمرين فالأول كي كلا كحيجي بالوحجسين سيوك الهريان حتى يتم إلى وكلما يسترموا الثلث كلا وكلما عليه فإن وجدت مركز هذه له الدفعة هل مربو حيري ما ركتي للكاس ما ركتان ومثلا هل مربو إسلقبت وحسكو داري وقف يهبي عتقي كل هل مربو إسكولا نواقي هل مربو إسكولا نواقي موسى كان هرمرين دفعة هالمرة واتحد الجنس جنسيين واسكمت كعتق عبيد بويانه أو إبراء جمع ضد بدن وحلقات ضعف ويانه وقرع في العتق بلو قريتورا وقصد في غيره والله قيبين حيري أدوما ماشان توبا بحول هدان لنتو مارتي
ثلثكooda la xoreeyo waa hal mar moogtay hadii ثلثkii waayo ma hebel baa ثلث ma hebel inaga ma kala garanayna moogtay dhawaan sidii hadda sheeganay baa la mari waa loo qori toori inta qoriga soo baxdo ba ثلثkii noqon waa fahanteen Soomaa macna saas oo kala way ثلثkii adoomadi aw ibraa wuxuu مثلا maartay ثلث dayni hebel ثلث maali oo dayntiya hebel halaga cafiyo dad badan buu tiriyay waa loo qaybin haday wada gaadho ثلثku wada gaadho waa khayr haday gaari weydana nin walba wixii kaga soo hagaaga waliba haday kala badan yihiin lacagtana waa loo kala badin waa sida faa'iidadii iyo khasaarihii oo kale wayaan waa haday isku jinsi tahay waa in ikhtarafa jinsiga haduu kala duwan yahayba jinsiga uu kala duwan yahay dhowr ruux wuxuu ku hebel hadaan dhinto adiga adoomada fulaan xore waa ko adigana deynteydii hebel ka cafi adigana xoolaha intaad qaado masjid ku dhis adig uu kala macna wadada isaga wakiil ka saad u dhintayba uu kala way tasarrufeen qayb dhul bay dhiseen qaybna adoomay xoreeyeen qaybna maxaa la sameeyay marka meesha masalada marka وإن اختلف هذو اسخلافه تبرعي منجز كابا كلا دوان وتصرف وحاوح معمولي وتصرف وكلا دينا وي تصرفين هل مر بيتلاوذي قادين هل مر بنور بيتلاوذي كل واقع فإن لم يكن فيها هذو سنين عتق ثلث كيلو وذا قالوا واي هذو ثلث قالوا خير ثلث كيلو وذا قالوا واي فإن لم يكن حفيرين وعلى فيرين هدوسا عتق كوجيرين فإن لم يكن فيها عتق هدوسا هين قصد والله قيبين نمو حكسا قال عرك وإن كان هديه عتق كوجيرين قصد أيضا سيدو كلا وفي قول بوحولاه وحقوك يقولون وقال لك قول كعدم خلاف سن يقدم العتق بالهرمرين هياه أو منجزة كنا لفظي هذا كنا قلنا أو منجزة تبرعات ومنجز أو غيركم حنا قدم الأول كي أهريا الهريسية فالأول كي أهريا الوحجسية حتى يتم الثلث إلى ثلث كرم يسترمو فإن وجدت هذه الهرة مارك تبرعي ويانا وسيادي دفعة هل مروا كل واقع واتحد الجنس جنسيين اسكميد ويان كعتق عبيد أدوم الله حرين يوكل وهل جنسية أو إبراء جمع كوح وحلقة ضافنا وهل جنسية واتحد الجنس ويان أقرع ولوقر تورا في العتق سكا ولوقر تورا وكان صوم الري وقصط واللوقي بها في غير العتق واللوقي بها وإن اختلف هذا جنسي كلا دواناد وجنس العتق جنس مارت وقف أو كلام كسوقات وتصرف أي تصرفان وكلاو dadkii uu kala ahaan ay tasarrufaan nin walba uu fuliyo balan dardarankii uu fuliyo oo ثلثkiina uu gaari waayo fa in lam yakun haduu sanahayn waa fiirine fa in lam yakun haduu sanahayn fiha wasiyada dhexdeeda cidqun kuma jiro qusida waa loo qaybiyaa wa in kaana hadii uu yahay fiha fil maaragtay fil wasiyati cidqun baa ku jira in kaana maaragtay waxa uu qadar ismkeeda waxa waa cidquna qusida ayadana waa loo qaybin wa fi qowl baa wuxuu leeyahay يقدم العتق أيا الله مرين هيا ساسوره فصل كما قارسين وبدويلان ولو كان له هدو سنا عبدان لبعض فقط او كليه سالم وغانم لبدا ادون من سالم بالله مid kala maxaa dhaha غانم فقال مركاسو وحوري ان اعتقت هدان حريو غانم هدان حريو فسالم حر واي ثم اعتقوا حري غانما بوحري في مرض موته اعتق وحروبي ولا اقراع قريتور رميشا مجيرو وشرط اسكو خيرن مومته اسكو خيره wuxuu yiri hebel hadaan xoreeyo laba doon buu leeyahay hebel hadaan xoreeyo ma aragtay hebel la waa xor saasuri hebel la waa xor markaasa ما أعرف وحول حري غانم كي ولا هذان غانم حريه سالم نوا حرب الموتى محور مري وحول غانم هذان حريه سالم نمحو نقنيا حر
marka waa shardi moogta in buu isticmaalay in actaqtu ghaaniman fasalimun xurun buu yidhi isagoo marka xanuunsanayo jirada u dhimanayay ayuu yuu xoreeyey qaanim buu xoreeyey xoolo kalena lama hayo xoolahana kulligood dardaaran ma noqdaan labadii nin xoreyntooda waa isku xidhan yihiin ma u qori tuurayna mise uma qori tuurayno looma qori tuurahayo sababta aan loogu qori tuurayno waxaa weeyaan qaanim maaragtay waxaa weeyaan meeshii maaragtay qaanim baa xor noqon haya maxaa yeelay isagaa ka horreeyay xagga dhawaaqa alawalu falawal sooma ahayn xagga dhawaaqu ka horreeyay in actaqtu qaaniman buu yihi kan dambana oo saalimana qaanim buu tabac u ahaa saas way macnaha waa in maaragtay walow kaana hadduu lahu u ahaado isaga cabdaani laba adoon faqad oo keliya saalimun mid magaciisa saalim baa la dhahaa ka labaadna qaanim baa la dhahaa faqaala markaasu wuxuu yihi in actaqtu haddaan xoreeyo qaaniman nin kale haddaan xoreeyo fa saalimun xorun xor waayo uma actaqa qaaniman buu xoreeyey fii maradi mowtihi geerida uu u dhimanahayey cataqada waa iroo xoroobaya ya maya qaanim dhaha qaanim walaa iqraaca lama dhahayo anu qori tuura labadooda walaa iqraaca qori tuurashana meesha ma taalo ee walow owsaa hadduu dardaarmo bicaynin cayn buu yidhi maaragtay cayntan aan dardaarmay cayntaasoo xaadiratin joogta waxbaan ka booda walow owsaa hadduu dardaarmo bicaynin cayn buu dardaarmay cayntaasoo xaadiratin joogta hiya iyaduna thuluthu maalihi waa wa baaqiihi xoolaha intoodii soo hadhayna qaa'ibun waa maqan yahay lam tudfac kullahaa loo siin maayo lam tudfac looma dhibo kullahaa ilayhi ila lmuusaa lahu في الحال مركبة ولا صحن حويان أنه لا يتسلط كمدر على التصرف في ثلث أيضا مثلا حويان نبا وحوليه هبه صدح قالمود الجيلة مركزو حول من وين شوفت لبا قالمود ميل كلا يكون مقنته مركزو حول هدان دنتو قال انت ان شوفت هبه هلا سيو وثلث كي وقته طيب ودنتي قال انت بان ولي شوفته labadii qaalmooda kalena way maqan yihiin qaalintii ninkii loo dardaarmay meeshan ina ag taagneed ninkiina uu dhintay kan jooga ma ku wareejinayna maya ila labadii kale waxay noqon war looma hayo moogta labadii kale ra'yiga Soomaaliga muxuu keenay aqal muxuu keenay lahaa ila warninkan waa loo dardaarmay hashan isaga loo dardaarmay hala si iska noqon lahayd moogta maadaama aan labadii kale lahaynin waa la sugi ilaa xaaladooda lagu ogaanayo waxaa laga yaabaa tan kale inay soo hadho xoolaha kulligood dardaarankood ma banaana mise ma banaanayn oo markaa thuluth uu sii yeesho soo ma aragtid طيب qowlka masalada kale meesha soo hasgeli karta waxaa weeyaan haddaan idhaahna lama siinayo lama mulki siinayo ma ninkii ma dhihi karaa gaariba ka soo qaad hashiiba iska daaba gaariyada mugti lagu shaqaystaa saddex gaari oo isla eg bay bahaayeen laba way naga maqanta midna uu taagan yahay wuxuu hadaan dhinto saddexda gaari mid kamid hebel hala siiyo ilaa thuluthkii hebelkii waxaan lama siinayo ilaa labadii gaari kala xaaladooda lagu ogaano imaanayaan waa qodobka labaad ma dhihi karaa ninkii wargaarigan haligu wareejiyo oo ku sii shaqaysto oo wixii aan maaragtay soo helana ila gaariga ana la dardaarmay wixii aan soo helana hadaan rabnaa si qaybsanne hala ii dhiibo ma dhihi karaa oo ku tasarrufi karaa waa ma qowlka asax maya لكن قول بابا حولي ها وكتصرف كلام ولو أوسى هدو دردار أو بعين بدردار ما عين تاسو حاضرة شوكته هي يضبط ثلث ماله هي عين تاس ها ثلث ماله حولي صدح من هذه الله قيبية مال أولي وباقيه باقي المال حولين تودي كلا سهر لين غائب ومقين هاي لم تدفع له من ديبو كلها عين تيوردن إليه إلى الموسى له في الحال مركب لكم وريتناه ولا سحسد صحنمدا بدن انه يسوي لا يتسلط كومن درمو على تصرف في ثلث لو تصرف ايضا كومن درمهيه ولا سوغيا والله سبحانه وتعالى اعلم